bismillaah waxa kamid ah ujeedada gaarka ah ee qofeeta inuu yeesho siyaabaha lagu ogaan karo amba qofku uu ku heli karo amba ku abuuri karo oo aynu soo qaadanaynaa tan koobaad qaacido amba falsafad Japanese oo loo yaqaano ikigai. Ikigai waa laba eray oo la isku geeyay marka la isku daro macnaheedu ay tahay sababta jiritaanka ama nolol u qalanta inay jirto. Iki oo macnaheedu yahay to life, nolol ama noolaanshiyo jiritaan, iyo gai oo iyaduna u qalanta jiritaankaas. labadaas oo la isku daray oo ah sababta jiritaanka ayaa waxaa la sheegaa Japaneesku inay ka mid yihiin dadka dunida ugu cimriga dhaadheer amba dalka labaad baa la soo geliyaa. waxaanay ku macneeyaan sababtoo inay ka mid tahay siibatulooyin iyo magaalooyin si gaar ah cilmi baadhis lagu sameeyay inay tahay sababtoo falsafadan oo la noolyiin darteed inay ka qayb tahay inay farxad helaan, farxadaasina caafimaad badan, caafimaadkaasina u sababo inay muddo dheer noolaan karaan. marka ikigai waxay ka kooban tahay 4 jaanib oo mida ay tahay wuxuu qofku jecel yahay, what you love, waxaad jeceshahay, iyo wax aad ku wanaagsan tahay, what you good at, iyo wax aad mushahar ka hesho oo ah what paid for, iyo wax dunidu u baahan tahay oo ah what the world needs. baahi ama mushkilad dunidu ay u baahan tahay la xaliyo amba in la kaabo. ta koobaad oo ah waxaad jeceshay, ta labaad oo ah waxaad ku wanaagsantahay, ta saddexaad oo ah wax mushahar ama faa'iido dhaqaale ka soo gelayo, iyo ta afraad oo ah wax dunidu u baahan tahay amba dalkaaga ama bulshadaada amba afarta arrimood inuu qofku isku wada helo hal shay ka wada helaa ma sahlana. laba arrimood oo kala duwan baad ka heli kartaa, 4 arrimood oo kala duwan qofku jiri karaa, laakiin iyagu waxa leeyahay markuu qofku afarta kulmiyo ayaa waxay isku noqonaysaa qaacidada ikigai oo waxa laga soo baxaya sabab jiritaan qofku inuu helo markaa ama ujeedo nololeed si kala dhahno purpose. marka laba la isku daro la isku raaciyo matalan mid kasta waxba ka soo baxaya oo marka la isku daro waxaad ku wanaagsantahay iyo waxaad jeceshay. waxaad ku wanaagsantahay waa mawhibada carabi amba hibada amba talent amba gift sida doonto dheh, iyo waxaad jeceshay laakiin laga yaabo inaanad ku wanaagsanayn. haddii labadaas isku mid yihiin, isku hal shay aad jeceshay kuna wanaagsantahay, waxa ka soo baxaya waxa loo yaqaano passion amba waxa carabi loo yaqaano shaqaf. passion haddaan maqasho waa wax qof uu jecel yahay kuna wanaagsan yahay. dabcan waxaad ku wanaagsan tahay ama hibay noqon kartaa ama xirfadaad baratad wanaagsan noqon kartaa, skill iyo talentku kaliya enough maaha, marka la sii horumariyaa ayuu wax ku ool noqdaa. amba qofku hibaba waxaan uma leeyahay laakiin uu bartay skill ahaan oo si fiican buu wanaajiyay. laba kale haddii la isku daro la israaciyo oo mida ay tahay waxaan aad ku wanaagsan tahay oo lagu daray waxa lacagtu ka soo gelaysa mushaharka, shaqo caadi ah qabato mushaar ka soo galo. labada marka la isku darana waxa ka soo baxa waxa loo yaqaano profession, mihnadaas oo ah un xirfad nololeed. profession waxa loo yaqaano waxaad ku wanaagsan tahay lacagna ka soo gasho. marka la isku daro wixii aad mushaharka ka helaysay ama dhaqaaluhu ka soo gali karayay iyo waxay dunidu ama dalkaagu u baahan yahay, marka labada la isku darana waxa ka soo baxaya waxa loo yaqaan vocation. marka la isku geeyo isku yimaadaan waxa dunidu u baahan tahay iyo wixii aad jeclayd ee u horeeyaan sheegnay, wax kaliya aad jeceshahay iyo wax dunidu u baahan tahay, labada marka la isku darana waxa ka soo baxa mission ama risaala, fariin nololeed.
imise arrin bay ka soo saarnay markaa afartii arrimood markii la isku daray mid waxaan ka soo saarnay wax loo yaqaano passion, midna profession, midna vocation, laba kale markii la isku darana mission baa ka soo baxay. qaacidadan waxa dhici karta mararka qaar hal arrin oo aad ilaahay ku jeclaysiiyay oo jeceshahay inaad kuna wanaagsantahay hibo u leedahay amba intood baratay xirfad ahaan aad u baratay isla wixiina dhaqaale ka hesho isla wixiina ajarna ku doontood xaafadaada magaaladaada dalkaaga ugu adeegtid mushkilada ku xaliso adoo faa'iidana dhaqaalena ka helaya haddana aad ummadana ku anfacdo afartaaba hal shay baad ka heli karaysaa. mararka qaarna waxa dhici karaysa adigoo shaqo iska haysta oo mushaharkaaga shaqo kala soo baxay professionkaaga inaad haddana wax kaloo jeceshahayna aad ugu shaqayso bulshadaada ajar ka raadiso halka aad purpose-ka ka hesho. markan waad kala yara qaybsantahay oo awoodaadii midna waqtigaaga waxna dhaqaaluhu galaya iyo mushaharkaaga gaarka ah familygaaga iyo naftaada midna ummadii baad uga adeegaysaa waqtigaaga uu yara qaybsamaya awoodaadana uu yara qaybsamaysa laakiin weli purpose-ka kama tagin. laakiin mar walba amba dhammaantood meel kaliya ku wada hadaan amba ha kala noqdaan marka ay ku jirto wax dunidu amba dalkaaga ama bulshadaada u baahan tahay oo aad ajar ku raadinayso khayraad ku raadinayso adiga ka baxsan naftaada markaas weeyaan marka purpose uu meesha soo galayo. inta kale oo dhan weli waa arrimo shakhsiya amba waxaad adigu jeceshahay uun amba wax faa'iido uun kaa soo galayo amba waxaad ku wanaagsan tahay uun. taas waay markaa loogu magacaabo amba qeexid kale fahan kale horena waynu soo qeexnaa haddeen mar kale qeexnaa halkan aan ka dhex fahmi karnaa purpose-ka ama ujeedada nololeed ee doonaynaa waa inuu yahay wax naftaada ka baxsan outside of yourself isla markaana bigger than yourself naftaada ka weyn saasay yidhaahdaan. marka naftaadi way ku jirtaa weli oo qeybaad ka tahay laakiin adigu kaa baxsan yahay marka ajar iyo khayr haddaad u niyeysatad ku doonayso dadkaagaad ku anfacaysaa mushkilad umadeed baad ku xalinaysaa dadkaad uga adeegaysaa. ama markuu professional kaliya yahay wuxuu kaga duwan yahay waa wax adigii naftaada kugu gaara iyo ehelkaaga iyo qoyskaaga kaliya ku gaara. marka waa halka ay mararka qaarkood dadku isku qaldaan markaa qof dhakhtarnimo soo bartay caafimaadka soo bartay oo mushaharkiisa kala soo baxa oo ehelkiisa ku kaaba laga yaabo inuu magac ka helo inuu isku arko inuu purpose-kiisa noloshu yahay caafimaadka. maya waa professionalkaagii waa xirfadaadii nololeed shaqadaad ku shaqaynaysay laakiin waad u bedeli kartaa isla xirfadaada shaqeyn purpose waad u bedeli kartaa. waa inay markaa adiga naftaada ka baxsanaatay kaa weynaatad ummadana gaadho keliyana aad faa'iido keliya ku doonine adoo mushaharkaagiina ku helaya laakiin aad wax badan oo kala eegto iyo saad ummadda u anfacayso iyo saad dadka u gaari karayso quality-ga caafimaadka aad bixinayso iyo waxa dhakhtarada kale kaga duwan tahay iyo waxaad saxayso ee la qalday iyo adigu mushkiladaad xalinayso waa waxaad u bedeli karto inuu arrinka adiga kaa weynaado ood han ummadeed iyo han yeelato ka baxsan naftaada keliyaad. kaasma diidayaan balse waa laba arrimood oo kala duwan. shaqadaada xirfadeed waxay doontaa ha noqoto siyaasi dhaqaale caafimaad macallin waxay doontaa ha noqoto marna naftaada keliyaad u koobantay iyo qoyskaaga marna adiga uu kaa weeyo kaa baxsan yahay oo ummadda markaa uu adiga kaa baxsan yahay haddaad ajar iyo khayr u niyeysato uu markuu u adeegayo ujeedadaada nololeed ujeedadii guud ee ahayd waxaynu u abuuranahay markay u adeegaysa weeyaan ee laga yaabo inaad khayr badan ka hesho lagana yaabo weliba inaad janno ku gasho ilaahayna raalli kaaga noqdo. marka si fudud haddaan soo koobno siyaabaha aad ku ogaan karayso ama ku abuuri karayso purpose-kaaga ama ujeedadaada nololeed ee gaarka waxa weeyaan inaad arrimaha formuladan ka fahmayno aad isweydiiso noloshaada iska dhex weydiiso waxaad soo qabanaysay iyo waxaad shaqo soo qabatay haddaad weli dhalinyar tahay inaad imaka dadaal badan samayso shaqooyin badan isku dagto xataa volunteer aad si iskaa iyo bilaa mushahara meelo badan uga qayb qaadato masaajidada ha noqoto arrimo khayriya ha noqoto macallinimo ha noqoto siyaasad ha noqoto dabeetana waxaad ka dhexeli doontaa waxaad ka jeceshay waxa kale waxaad ka dhexeli doontaa waxaad kaga wanaagsan tahay ama markaad baranayso xirfad ahaan ay kuu fududahay waxyaabaha kale kaaga fudud waxaad ka dhex arki doontaa mushkilad ummadeed baa kuu muuqan doonta xal u baahan oo dabeetana isku arki doontaa qofka xalinaya in adiga tahay keliya town
wacyiga iyo u fiirsashadaas u baahan tahay iyo arrimahaas oo afarta dhan ka eegtay kadibna hadaad mideysay mid kaliya aad ka dhaxasho ka dhax samayso waa sababta ay ta qofku inuu abuuri karo ee aan ahayn wax ka maqan meel ka helayso waxaad ka dhax abuurayso arrimaha noloshaada u fiirsanaysi ujeedada nololeed gaarka siyaabaha lagu helo ama lagu abuuro muuqaal kale waliba ku sii faahfaahinayna intaan isku geeyno waxa idinkaga tagay mahadsantiin. Assalaamu calaykum.